fadlan subscribe share like garee page-kayga waad mahadsantahay. bismillahi raxmaani raxiim. waa mar kale iyo barnaamijkeenii waddankiina wax u bartaa. barnaamijkan waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa akhriska. akhrisku waa amarkii koowaad ee ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo. akhri. jibriil calayhi salaam waxa uu rasuulka faray akhri. in ka badan 77,000 ee eray ee qur-aanku ka kooban yahay waxa ilaahay ku bilaabay diinta islaamka akhri. اقرأ باسم ربك الذي خلق waxaad ku akhridaa magaca ilaahay ee wax abuuray. laba shardi oo uu ku xidhan yahay akhrisku. akhri wixii ilaahay aan ka cadhaysinahayn. shardiga labaad, akhri laakiin dadka ha iska weynayn. madax furashadii maxaabiistii Badr. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu faray in maxaabiista masaakiinta ahi akhriska iyo qoraalka ay baraan 10 carruurta Madiina ka mid ah. Zayd ibn Thabit waxa uu akhriyi jiray oo uu qori jiray waraaqaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam, isla markaana quraanka ayuu qori jiray. daadiisu waxa ay ahayd 13 jir. waa fariin ku socota dhalinyarta. umuumanimada ummadeena iyo maanta 62.2 ayaa dadkeena aan waxna akhriyin waxna qorin. ku dhawaad 50% ayaa ragga aan waxna akhriyin waxna qorin. ku dhawaad 75% ayaa dumarka aan waxna akhriyin waxna qorin. sideen ku jeclaanaa akhriska? kow, niyadda gasho inaad wax akhrido. ogow inaad ilaahay raali gelinayso. ogow inaad anfacayso naftaada. ogow inaad anfacayso ehelkaaga. ogow inaad anfacayso ummadda Soomaaliyeed idilkeed. ogow inaad anfacayso dunida oo dhan. qorshee akhriskaaga. oo qodobka labaad, ka jawaab su'aalahan. buugaag intee leeg ayaad akhriyi doontaa? intee in leeg baad ku akhriyi doontaa? waa intee in leeg fahankaagu? buugaag noocee ah ayaad helaysaa? tusaale ahaan, waxaan akhrinayaa 5 buug 6 bilood ee soo socota. buug kasta waqti go'an sii. Number 3, waqti go'an wax akhri. waqti gaara u samee akhriskaaga, sida salaada subax kadib ama hurdada ka hor. ka faa'iideyso waqtiyada dhexyaalka ah. waa waqtiyada laba shaqo u dhaxeeya ama gaadiid aad saaran tahay. 4, qunya socod haw. akhriskaaga ku bilow in kooban, kadibna u gudub in ka sii dhaadheer. sida qofka orodka dheer ordaya ee marka hore si degan u bilaabaya, kadibna orodka kolba in yar ku kordhinaya. 5, akhrisku waa inuu ka dhab yahay. samayso buug aad ku qorto su'aalaha aad ka qabto cilmiyada aad akhriday ama faa'iidooyinka aad jeceshahay inaad la wadaagto dadkaaga. buug kasta u akhri sidii aad u akhriday kii koobaad. ha caatisin. ku dayo muslimiintii hore sida Bukhari iyo kuwa maanta sida Sheekh Mustafa. 6, samayso barada buugaagta. ka fakar inaad samaysato maktabad ku gaara. ha noqoto maktabad ay yaalaan kutub kala duwan. carruurtaada iyo lamaanahaaguba waa ay ka faa'iidi doonaan. 7, faafi waxa aad akhriday. gaarsii dadkaaga macluumaadka aad akhriday. ogow inay korodho
aqoontu marka wax laga bixiyo. 8 asxaabtaada wax akhrida wehesho. adiga iyo asxaabtaadu isla wadaaga wixii aad akhrideen. caqli qura waxa ka mudan 2 ama 3 caqli. asxaabtaadu waxa ay ku yihiin mar kastaba dhiirigelin. 9 warayso khubarada. ka bilow aqoontaada halkii ay ku istaageen aqoonyahankii ka horreeyay. wax ka soo saar ama ka soo rar culimada aqoomaha aad akhriyayso aqoonta dheeraadka u leh. kadibna ku kordhi aqoontaada si aad u noqoto aqoonyahan jiitay. su'aal kale oo muhiim ah, maxaan akhriyaa? quraanka kariimka ah. kitaab la akhriyo waxa u mudan hadalka Ilaahay. quraanku ma aha sheeko baralay ee dastuurka nolosha ee qofka muslimka ah weeyaan. si aad u gaadho naxariista Ilaahay isku day inaad joogto ahaan u akhrido quraanka. xaraf kasta oo aad akhrido waxa aad ku leedahay 10 ajar. 2 axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam. hadallada rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa ereyo kooban oo sida macnayaal aad u ballaaran. isku day maalintii inaad akhrido 1 ama 2 xadiis. ka bilow kutubta yaryar sida al-40 an-nawawiyya. kadibna اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. كدبنا مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح مسلم، صحيح البخاري، صحيح مسلم. 3 علومة الإسلام كجودهان. اسكو ضي إن هذا وحكا آخر ضمان علومة الدين تأكل الدول. وحكا آخر تفسير كقرآن شرح حديثه يصير كلا حكم كقاعو كالله ضل صبحه. 4 تخصص كاجا. هدي دكتور تهي وحكا آخر دكتور لماذا؟ sidoo kale samee hadii aad tahay engineer noocyadiisa oo kale. hadii aad tahay qof iska xamaasha isku day inaad wax ka akhrido sidii aad ugu gudbi lahayd halka aad taagan tahay meel ka sareysa. 5 taariikhda rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo muslimka. wax ka akhri taariikhda rasuulka sallallahu alayhi wasallam waayo waa tusaalihii Ilaahay wax inagu baraayay. wax ka akhri taariikhda ummadaha islaamka ee dheer waa ilaa 1441 sanadood oo ka dhacay daafaha dunida. 6 nolosha aad ku nooshahay. wax ka akhri wararka adduunyada si aad ula socoto xaalka muslimka. wax ka akhri wararka ummadaha kale si aad u ogaato halka la isla marayo. 7 fikirka dadka ka soo horjeeda. kadib markaad macluumaad badan ka hesho diintaada, fikirka ummadaada, wax ka akhri ummadaha kale iyo sida ay u fakaraan. wax ka akhri dadyoga kale iyo sida ay u arkaan islaamka iyo muslimka. 8 caruurta. wax ka akhri caruurta iyo sida ay u fakaraan. wax ka akhri caruurta iyo sida loo tarbiyadeeyo. 9 nafta in la dejiyo. wax ka akhri sheekooyinka xiisaha leh si aad nafis u dareento maalin hawl badan dabadeed. intaasi ayaan ku soo koobaynaa maanta barnaamijkeeni wadankiina wax u barta. inta aynu ku kulmayno kulankan oo kale ah oo aad u xiiso badan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.